السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada koorsadeena AutoCAD drafting course maanta waxaan isla arkaynaa ama aan baran doonaa lecture 4 casharkan waxaan ku arki doonaa drawing lines polylines and splines sidee loo sawiraa adigoo isticmaalayo softwareka AutoCAD line polyline iyo spline okay meesha waxaan noo daaran hadeertan softwarekeeni soo marka waxa toolka ugu horeeyo aan baranayno qaabka loo draw gareeyo waa line hadaa fiiris marka meeshan marka aragto home aad joogto qaybtan drawga leeman badan ku jiro balse saddexdaas ayaan maanta isla fiirinayna waliba labadana ayaa most cases la isticmaala inta ugu badan kuwana aad common u ah soo marka line sidee loo sawiraa waxa sameeynaa meeshaan aad tagee line ayaa soo dooranaysaa wuxuu ku leeyahay specify first point bar bilowgaada ugu horeeyda sheeg barta ugu horeeyda aad line ka bilaabaysa ii sheeg halkan ayaa leena line-ka toosin line inuu ku tusin waxa ku ogaanay tooshkaas lagu daba dhigaya dhibicdaas okay soo marka 1 millimeter oo kale ii galiya leeyahay okay 1 millimeter hada waa sawiray waxa kale oo sameeyna marka 600 oo kale kor ii gali okay maxaa la hayay 1 kale hadana gali okay marka intaas dhaado isku xir okay click markaas siisa marka wali line-ku kula socda si asaga rabto marka waxa sameey kartaa qaybta keyboard-ka meesha ESC ay ku qoran tahay escape ama waxa sameey kartaa meeshaana close ka dooran kartaa ama waxa sameeyne enter dhigi kartaa soo marka close ka dhasi oo kaaga haro sidaas marka hadda line ku sawirtay wada kale ma jirtaa marka yes wadada kale waxay tahay as a comment amar ahaan ina u siiso maxaa taabana marka AutoCAD muxuu u yaqaanaa line L ayuu u yaqaanaa L kaliya marka doorato line enter dheh sidoo kale u sawir marka waxa doonto saas u sawir okay soo marka qaabkaasna waa loo sawiraa line-ka okay line marka waa markasta waa continuous hadda first point fiiri marka soo doorato oo bar bilowga u sheegto wuxuu ku leeyahay next point dooro halkan hada fiiriso next point okay hadana muxuu ku leeyahay next point okay soo marka ilaa aad wixii aad rabto ka sawirato okay hadda naga delete garay line-ka marka qaabkaas loo sawiraa waxaan ku xijinaa marka polyline soo dooro asagana halkaas laga doortaa muxuu ku leeyahay sidoo kale specify start point bar bilowga ii sheeg halkan aan ka bilaabana hay next point hay next 1 millimeter iska gali sidii hadda amal okay 1 millimeter marka galiyo hoos soo bax okay kun kala gali marka shay square aan sameeynaa okay dhinacan hadana u soo bax kun kala dooro okay kadibna waxa sameeysaa isku xir okay ama kun kala hada automatic galiso isku xirnaa okay kun kala hada galiso enter aad dhahdo waa kaas line-ka markuu kula socdo waxa sameeynaa saddexda qayb ku sheegay escape ama in halkan close ka dhahdo ama ina enter dhahdo soo markaan enter iska dheh saas uu kaaga har okay kana marka muxuu yahay waa polyline okay soo marka hadaa rabto inaad mar kale sawirto qaab kale ma sawir karaa yes as a comment u sawir karaa amar ahaan muxuu u yaqaanaa marka AutoCAD BL ayuu u yaqaanaa BL marka muxuu u yaqaan BL dheh enter dheh kadib wuxuu ku leeyahay specify start point bar bilowgaada sheeg soo marka sidoo kale bar bilowgaadi muxuu ku leeyahay dana next point sheeg waa kaas sidoo kale marka u sawiray okay I hope ina isla garanay intaas su'aala marka imaanayso qofku wuxuu isweydiinaa warniyaha line iyo polyline maxay ku kala duwan yihiin waa isla aragna marka waxa sameeyna markaan kan hadda polyline waa sida ay la socotay polyline-ki waay kana line-ka markaan sawiraa okay asagana waxa sameeynaa anoo meeshan ka tixraacayo halkan ka bilaabo bar bilowgayga 1 millimeter okay sida polyline-ku kala asana wuxuu ku leeyahay next okay hoosaan u soo toosinaa qaybta oo y direction oo wali negative ka ah okay 1 millimeter kale ii gali okay dhinacan waxa u soo baxda hadana x axis oo hadana negative ah soo dhaqaaq okay kadib halkan isku dhufanayna isla sameeyeen okay soo marka escape de marka okay marka hadda labadan wax saas u kala duwan marka laakiin waxa rabaa inaad difference aad dareento fiiri muuskaada soo dhaqaaji ee waxa ku dul dhufataa boxkan maxaa u jeedaa boxkan sida hal shay oo kale ayuu wada doornaa macna fiiri waa u soo dhawaana waa doorta hal shay oo isla socdo oo aan kala go'sanayn waa okay laakiin halka marka imaado oo dhinacan aan ku dhufto fiiri maxaa u jeedaa hal line oo ii dooraa hay escape de kalaabo hay dhinacan bal hoos ka dooro soo marka message waxa dareemay line-ku pointiyada waxa line-ku wuxuu noqonayaa waa leeman kala duwan oo kala gaar ah yani separate waaye waa kala soocan yihiin waa la isku geeyay maahane isma haystaan balse kan hal shay oo kale ayaa ula tacaamul kartaa okay kaligiis hada doorato okay soo marka that's the difference farqiga waa intaas okay marka waxa sameeynaa naga dileed waxa rabnaa marka polyline-ka intaan ka bixin polyline-ka macnaha kaliya line-kan ma ku sawir karnaa macnaha leemankan kaliya ma ku sawir karnaa no okay qaab kale isticmaali karnaa jiro okay polyline dooro bar bilowgaad ugu horeeyda u sheeg kadib as arc ahaan u isticmaali kartaa arc dooro arc maxaa marka
waa argawa saa u taqaano waa circle halfkiisa oo kale waa ma fahanti soo marka diameter hadaa geliso dhaxroorkan hadaa geliso dhaxroor kaaga baahan yahay okay diameter hadaa geliso automatically uu ku shaqeynaa soo marka sidaas oo kale circle hadana circle kale hadana circle kale hadana mid kale saas marka arka markaas wareeysidna asagana waa la isticmaala okay wax kale hadana ku tusaa polyline dooro barbilowgaada dooro markaan widthkiisa wax ka bedeleynaa widthkiisa balciisa markaan waa dhuuban yahay Soomaa soo marka waxa sameeynaa 100 mm oo kale aan ka dhigaa balciisa enter dheh okay waxaan marka rabaa inaan kugu baraarujiyo ya ina dareenta ka rabaa barta ugu horeeyaan doortay width aan doortay okay markaan ka bedelo uu qaatay 0 dheh okay markaan leenka sidiisu u yahay marka width dooranay horta koow waxa rabaa inaan ku tuso okay kadib wuxuu ku leeyahay specify starting width balcaga xagu ka bilaaban barta uu ka bilaabanayo waa xagee okay marka waxa rabaa balcaga aniga balciga waxa inaan ka dhigo 100 mm okay starting width ka waa kaas ending width meesha uu ku dhamaanaa balceedana sidoo u ekaana isla ayadana 100 marka wooba ku sii gashan yahay halkaan uu ku jiraa enter la sii dheh okay soo marka meeshaas maxaa uga jeedaa balac hadaa fiiriso wuu isbedelay laankii dhuubnaada arkeynay qaabkaan u noqday okay halkaan ku dhufo marka kaliya marka ku siido kana marka waxa isku deynaa inaan falaar ka dhigno okay marka la width dooro wuxuu ku leeyahay start width waxaan leeyahay 300 ka dhig markaan falaara ka dhigeena ending widthkeyga maxaa ka dhigaa 300 maya 0 iiga dhig enter dheh maxaa u jeedaa marka meeshaas falaar halkaan oo dhinacan hadda u dambeeyo meeshaas u dambeeyo hadda x ku soo qormay 0 ay ka tahay okay balse halkaan maxay ka tahay 300 oo ka noqonaa okay marka waa isla fahanay qaabkaasna looga faa'iideysay marka hadaa rabto inaad sidii hadda ku soo celiso polyline soo dooranay barbilowgaada dooranay مثلا waxa kugu gashanaa boqolkiiba gashan tusaale ahaan balci boqolka saana gashay inaad bedeshaa rabtaa tusaale ahaan fiirad saana dhahay balci saan waa marka rabto inaad bedesho waxa sameeyay widthka la markala dooranay meesha 0 ka dhigay enter markale enter okay lengthsaas uu kugu soo noqday halkaas waxa uga baxa marka qaabka loo isticmaalo ama loo draw gareeyo polyline u imaana markaan SB line xagee ka helaysa marka meeshaan draw ayaa furay qaanadana furay kan ugu horeeyay waay okay soo doora marka soo doorato wuxuu ku leeyahay sidii kuwa hore oo kale specify start point balse ka hor laba method loo sawiraa oo laptopku applicationku uu ku ogolaana intaada barbilowgaada ku dhufan method ku dhufanay okay click C marka labada method mid waxa la fit midna waxa la CV okay hadda kay ku jiro fit by default fit ku jiro soo marka hore fit aan fiirinayna waa noo dooran yahay barbilowgana ku dhufanayna next point halkan noo ah next point waa kana next point next enter iska dhamar noocaas marka waa sawirna okay method ka labaad marka ku sawirana hadana draw dheh kan ugu horeeyo waay method ku dhufo kadib marka CV ku dhufo okay CV marka ku dhufto marka barbilowgaada waa kana next point waa qaabkaas oo kale enter dheh soo marka labada method midna waxa waa fit midna waxa waa CV soo marka maxaa farqiga u dhaxeeyo ayaa isweydiin mudan farqiga marka si fudud ayaan isku loo fahmi karaa aan kugu sheegaa marka soo dhaqaaqdo oo muuska soo dhaqaaqdo oo SB line-ka ku dul dhufato maxaa dareemaysaa points kala duwan ku dhufanaysid start point waa kana next point soo pointskaas line-ka uu ku socdo ama uu raacsan yahay maxay dul saaran yihiin waxay dul saaran yihiin line-ka dul saaran yihiin okay marka harto marka wax ka bedesho waa dul imaanay waa qabanay meesha harta u jiiday okay adoo haayo muuska left click waa haynay hoos u soo dhaqaajinaysaana leeyale okay kliga siine kana qabanay dhinaca yarka u jiida leedahay click ku si kan kor u jiid leedahay wax yar click ku si meeshaas sida marka saasa wax uga bedelay balse kan fiiri kan marka soo dhaqaaqdo oo line-ka ku dul dhufato maxaa dareemaysaa pointski start point iyo next pointski tirada badna aan sameeynay maxay intay ku yaaliin waxay ku yaaliin meel ka baxsan line-ka ma dul saarna banaanka ka yaaliin okay soo marka artin wax ka bedesho kana qabanay hoos u soo dhigay okay kanoo kale waa qabanay korgey kan hay click ku si meeshan kan qabo xogaa yar halkan soo gali click ku si kan waxa sameeynay wax yar hoos u dhig sidaas marka wax uga bedelay soo marka farqiga u dhaxeeyo waa kaas midna pointskiisa line-ka dul saaran yihiin midna line-ka banaankiisa oo banaanka dhowsaas ayaad wax uga bedelaysaa saaxiibayaal cashirkeen halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa waxa inoo balana insha Allah lecture-ka kan xiga hadii Ilaahay yiraahdo lecture 5 insha Allah